dadka cusubtay channelka subscribe saar maanta waxaan noo hayaa halkan ka muuqda karbaash culus gurey barwaaqo oo ka xasan toob iyo gurey barwaaqo oo halkan ka muuqdaan sawiradoodii labada nin wad garanaysaan waa caan barwaaqowan ayaa maandhowto waxa uu falakay xasan toob kadib waxa uu soo jawaabay aan eegno assalaamu calaykum asxaabta meel waxa ka idin kala soo hadlayna waa durdur media yaana soo karbaashay yaa waan ka hadlayaa eeg xasan toob isagu xareysan yahay wuxuu yaana soo karbaashay yaa jari rabnaa yaana soo karbaashay la yaabanayba toob ayaa uu falanqeeyay isagu iyo wiilal sidoo kale waan daawaday run ahaantii gabadhan anigu waxa uu soo kaxaystay aan la yaabanahay wiil balbalaaran balbalaaran eeg imika waxay doonaysaa inay canjarafayso ama caydo jilaaga weyn ee reer Somaliland ee gurey barwaaqo kaas ay doonaysaa inay canjarafayso gabadhan yartaa bal fiir waxay imika ku cayayso ninkaas magaciisa barwaaqo guri barwaaqo miyaa magaciisa maxaa guri barwaaqo la walaashayda horta marka koowaad barwaaqo la dhahaa taas horta eeg walaashayda barwaaqo la yiraahdaa bay ku leedahay ninkan gurey barwaaqo way gurey iyadoo markaa waxay moodaysaa guri bay ku leedahay guri barwaaqo markaa magacan waa magac gabdheed ninkan waa gabadh bay leedahay ka xishood baan leenahay markaa ninkaas xasan toobna waxaan ku leeyahay marba raggaadii sidaada ragga loogu yimaadaa baan leeyahay marka gabadhan waxaan leeyahay magaca dumar oo la baxay mid koowaad mid xigta horta marka dad inta ku mashquulan guri barwaaqo ay ku leedahay magac dumar ayuu la baxay magaca dumar nin dumar ah waan rageed sidoo kale jilaaya reer Somaliland la yaqaano u dhashay gobolka ragga marka ninka waxaan leenahay ka xishood xasan toob marka adigu sidaada hadii aad ugu soo jawaabi lahayd macquul bay ahaan lahayd laakiin markaad gabadh soo kaxaysatay marka maxaad soo kaxaysatay sababta marka waxa halka laga danamay inuu ka baqayo guri barwaaqo adina adiga isku mashquulshaa guri barwaaqo maxaa la dhahaa horta waxa fahmi guri barwaaqo mid barwaaqo gabar la dhahaa gurina oo guri la degabo marka maxaa waay marka Somaliland macnaha oo isku ciyaar qofka waa wareerno magaca soo wareersana loo bixiyo umalena guri barwaaqo oo magaciisa way isleeyihiin yah magaciisa asiga way isleeyihiin iskalaaf mid aan kala hadlayaa waxa taa wiilkaas inta dadka ku mashquul waa inaa isku mashquulshaa sabaad istaaga guriga uma taalamiya oo isku fiirin kartid wajigaada waxa suumta soo adiga wajiga maanta mid kale adiga waxa uu agtaa gabadha ayuu la xamanaya xuglay si uu foolxun yahay maaragtay hatta isaga isma arkayo waxa la takar maroodigu takarta saaran ma arkay kale ka saaran buu arkaa marka ninkan waxa leeyahay foolxumadaada adigu ma u jeedaa jareer ayaa tahay misaad caayaysan la yaqaano jilaaya cunuga bila dhamaysan calashaan oo saddex ku dhalay aba tahay umaleynaya tan baaba ka sii daran buu waxaad leedahay waxa tahay toddoba ku dhalay ayaa tahay bay ku leedahay ka xishood moona la markaa ninkaas waxa kala hadlaya afka bulshada la soo hor istaagaysa mid marka horeeto waa inaad iska soo hagaajisaa oo ma fahanteen iro inuu gashto si xaas afyaxaasad meel la soo istaagtay dad dacayadeynaysa horta adiga isku mashquulta dad ku mashquulin wiilow sida gabadhii oo kale oo qada kuskusan leeyahay mid kale jiimna tag fahant qofka ciyaara misasaan hadho waa qofka wanaagsan fahante wada aragtaas xasan toob waa qof isagu imika run ahaantii marka imika wajigiisa arkaysid qof qurux badan maaha sidoo kale jareer weeyaan bandhigka timihiisa xitaa soo arkaysaa hadhuudh weeyaan marka ninkan anigu run ahaantii foolxumadiisa waan la yaabay iyo siduu dadka u caayayo marka gabadhan yarta anigu waxaan leeyahay adigu waxaa tahay carabkaaga adigu aad buu dheeriyaa marka waxaan ku oran lahaa ka xishood guri barwaaqana waxaan rajayn doonaa inuu karbaash aad iyo aad u adag uu ugu soo karbaashi doono iyaga